kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobada aan maanta barnaamijka ku soo qaadan doono waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Kheyre oo fariin u diray shacabka Soomaaliyeed. wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda siyaasadeed ee dalka. madaxweyne Farmaajo oo ugu dambeyn u muuqda inuu aqbalay doorasho dadban iyo guddigii farsamada oo la magacaabay. madaxweyne Farmaajo oo siyaasi caan ah u xil saartay arrimaha doorashada haddaba waa kuma ololihii lagu raadinayay xilka ra'iisul wasaaraha iyo shakhsi si lama filaan ah ku noqon kara ra'iisul wasaaraha cusub oo la ogaaday. madaxweyne Qoorqoor oo kulamo xasaasi ah ka wada Muqdisho iyo dawladda Qatar oo uu kala hadlay arrimo xasaasi ah. sidoo kale waxa ay wada hadal yeesheen mucaaradka. golaha wasiirada dawladda federaalka oo ansixiyay heshiisyo waaweyn oo ay ku jiraan kuwa la galay dawladda Qatar. maxaa xilligani ku soo beegay diyaaradaha caalamka oo Muqdisho ee ka degi doona iyo dawladda federaalka oo war ka soo saartay arrintaasi. iyo sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo muddo kordhin dalbanaya. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah. waana Jimce 31 bisha 7 ee July sanadka 2020 waana maalintii koobaad ee Ciidul Adha. ciid wanaagsan daawade. barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka. haddaba daawade ka qayb qaado dib u dhiska dalka annagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin karaya. waad ku mahadsantihiin inaad intaas nala fahantaan ee fadlan nala faafiya wararka oo gaarsiiya saaxiibadiina adinkoo ku shargaranaya baraha bulshada. aynu ku bilowno barnaamijkayaga xaaladda siyaasadeed ee dalka. guud ahaanba dalka waxaa maanta looga dabaaldegay maalintii koobaad ee ciidda Carafo. waxaase ciidan ay ku soo aaday xilli adduunku uu la dhibaatoonayo cudurka safmarka ah ee coronavirus kaas oo saameeyay goobihii la isugu soo bixi jiray marka dabaaldegyada ama munaasabadaha ciidaha la gaaro. dhanka kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hambaliyo ku aadan munaasabada Ciidul Adha u diray shacabka Soomaaliyeed isagoo u rajeeyay in sanadkan kiisa kale ay ku gaaraan bashbash iyo barwaaqo. waxaan ugu hambaliyaynaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed munaasabada barakeysan ee ciidda Carafo. waxaan ugu hambaliyaynaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed munaasabada barakeysan ee ciidda Carafo ee sanadkan hijriga 1441 ayuu yiri madaxweynaha dalka oo fariintan soo dhigay bogga madaxtooyada ay ku leedahay Facebook. alla waxaan ka baryayaa inuu noo aqbalo ducada dadka muslimiinta ah ee sanadkan nasiibka u helay inay gutaan acmaasha xajka ayuu hadalkiisa ku daray. madaxweynaha dalka ayaa si gaar ah hambaliyo ugu diray ciidamada xoogga dalka. waxaan si gaar ah ugu hambaliyaynaynaa ciidamada nageesiyaasha ah ee har iyo habeenba u taagan difaaca dadka iyo dalka. anigoo ku bogaadinaya dadaalka muuqda ee ay ku xaqiijiyeen amniga iyo nabadgelyada shacabka Soomaaliyeed. dhinaca kale ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre ayaa isna fariintaas la mid ah soo dhigay baraha bulshada isagoo shacabka Soomaaliyeed ugu hambaliyay maalinta ciidda. waxaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ugu hambaliyaynayaa munaasabada Ciidul Adha. waxaan u rajeynayaa in sanadkan sanadkiisa ay ku gaaraan barwaaqo nabad iyo horumar ayuu soo qoray ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo halku dhig ka dhigtay hiigsi iyo horumar amaano iyo adeeg. kumanaan dad ah ayaa ka falceliyay fariinta Xasan Cali Kheyre iyadoo dadku ay u muuqdeen kuwo garab taagan siyaasigii ugu dambeeyay ee ay galaafatay seefta baarlamaanka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre. Xasan Cali Kheyre ayaa haatan hotel ka degan magaalada Muqdisho kadib markii uu saga baxay madaxtooyada Soomaaliya maalin uun kadib markii xilka uu ka tagay. welina lama oga qorshihiisa siyaasadeed ee xiga. weli warqaad TV ayaad inagala socotaan. madaxweynaha dalka ayaa weli wada abaabuladii ugu dambeeyay ee uu ku soo dooranayay ra'iisul wasaarihiisa cusub. warar aan ka helnay madaxtooyada ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu doonayay inuu 7 gudahood ku magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub laakiin dib u dhac ku yimid sababo la xiriira la tashiyada oo dheeraaday. waxa ay gaari doontaa ilaa iyo 5 bisha Agost ee fooda inagu soo haysa si uu madaxweynuhu ra'iisul wasaare u soo magacaabo ayuu inoo sheegay sarkaal ku dhow fila Soomaaliya.
shakhsiyaad dheeraad ah ayaa soo baxaya oo si weyn loola xiriirinayo jagada ra-iisul wasaaraha waxaana saacadihii ugu dambeeyey aad loo hadalhayay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar oo sidoo kale ka mid ah la taliyaasha madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor weli waxaa isna magaciisa meesha laga saarin xoghayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ahna safiirkii hore ee Soomaaliya u joogay dalka Djibouti Maxamed Cali Nuur dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la taliyihiisa arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda u magacaabay Cabdi Cali Raage oo ah siyaasi caan ah oo ka mid ah saaxiibada aadka ugu dhawaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ila wareedyo muhiim ah oo ku dhow madaxtooyada filla Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in Master Cabdi Cali Raage loo magacaabay la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda tani ayaa muujinaysa in madaxweyne Farmaajo uu aqbalay doorasho dadban marka si loo eego maadaama uu ninka uu u magacaabay arrimaha doorashooyinka ee madaxtooyada Soomaaliya ku matalaya guddiga farsamada uu yahay nin horay uga soo shaqeeyay farsamooyinka doorashooyinkii Jubbaland iyo tii federaalka waxaana lagu daray guddiga farsamada ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan xubnaha ka imaanaya dowladda federaalka guddigaas oo ka baaraandegi doona nooca doorasho ee dalka uu aadayo Cabdi Cali Raage ayaa lagu tilmaamaa farsamo yaqaan galaangal badan leh waxa uu ka mid ahaa guddiyadii farsamo ee ka soo shaqeeyay doorashadii dadbaneed ee sanadkii 2016 Soomaaliya ay ka hirgelisay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud bishii Abriil ee sanadkii la soo dhaafay 2019 ayay ahayd markii Axmed Maxamed Islaam Madoobe uu xilka ka qaaday Cabdi Cali Raage oo ahaa la taliyihiisa sare ee arrimaha siyaasadda xilka qaadistaas ayaa salka ku haysay howlihii doorashada Jubbaland waxaana Master Raage uu ka mid ahaa raggii ugu horeeyay ee ka hor yimid Axmed Madoobe dhanka kale mucaaradka ayaa iska fogeeyay inay dowladda madaxweyne Farmaajo ay ka dalbadeen xilka ra-iisul wasaaraha kadib markii arintaas ay si weyn u soo shacbaxday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kana tirsan madasha xisbiyada qaran ayaa sheegay in guddoonka baarlamaanka aysan ugu imaan ajenda siyaasadeed laakiin ay si madax bannaan isaga wareysanayeen xaaladda dalka Xasan Sheekh waxa uu ka dalbaday dowladda iyo maamul goboleedyadaba in shirka dhuusamareeb uu noqdo mid ballaaran oo laga qayb geliyo xubno dheeraad ah oo uu ula jeeday xisbiyada siyaasadeed ee dalka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan oo la rumaysan yahay inuu ka mid yahay musharaxiinta xilka madaxweynaha ee doorashada soo socota ayaa cod dheer ku sheegay inaysan aqbali doonin in doorashada dalka ay dib u dhacdo si kastaba waxaa soo baxayay warar sheegaya in madaxweynaha dalka Maxamed Farmaajo uu dadaal ku bixinayo inuu mucaaradka kala tashado ra-iisul wasaaraha cusub si dalka lagu hogaamiyo doorasho cod iyo qof ah dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya ayay u muuqataa inuu aqbalay qorshihii maamul goboleedyada ee horay uu diidanaa ee ahaa in dalka ay ka dhacdo doorasho dadban oo xilligeeda ku dhacda dowladda federaalka ayaa na magacowday guddi ka kooban 7 xubnood oo kala matalaya dowladda dhexe iyo gobolka Banaadir si ay ugu biiraan guddigii looga dhawaaqay shirkii dhuusamareeb siyahayaha wasiirka dastuurka dalka Saalax Axmed Jaamac oo ka socda dhanka xukuumadda la taliyaha madaxweynaha dhanka doorashooyinka iyo siyaasadda Cabdi Cali Raage oo ka socda madaxtooyada ama xafiiska madaxweynaha Cabdiraxmaan Mucaawiye oo ka socda dhanka xukuumadda Caadil Sheegow Sagaar oo ka socda gobolka Banaadir Marwo Sahra Cali Xasan oo ka socota gobolka Banaadir iyo Cabdulqaadir Muxudiin oo ka socda gobolka Banaadir ayaa ku biiraya xubnaha guddiga ka soo shaqeynaya nooca doorasho ee dalka uu aadayo oo horay maamul goboleedyadu ay u soo magacaabeen xubnihii iyana guddigaasi ku matali lahaa tallaabada uu qaaday madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka dhigan inuu ka shaqeynayo in dalka ay ka dhacdo doorasho loo wada dhan yahay madaxda maamul goboleedyada ayaa horay u sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu tanaasul sameeyay kadib la tashiyo badan oo ku aadan in dalka aysan ka dhici kareenin doorasho cod iyo qof ah 15ka bisha soo socota ee Agosto ayaa la filayaa in madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyadu ay isugu tagaan magaalada Dhuusamareeb halkaas oo uu ka furmi doono shirka Dhuusamareeb 3
ha yeeshee xasan cali kheyre ayaa shirkaas ka maqnaan doona kadib markii uu xilkiisa waayay lamana oga in shirkaas uu qabsoomi doono iyadoo madaxweynuhu uusan magacaabin ra-iisul wasaare cusub wararka kusoo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan kusoo qaadan doonaa insha allah. iminkana golaha wasiirada ayaa ansixiyey heshiisyo sidoo kalena waxa ay meel mariyeen guddiga garsoorka dalka. golaha wasiirada xukuumadda kumeel gaarka ah oo ay kalsoonida kala noqdeen dhowaan baarlamaanka federaalka ayaa yeeshay kulan lagu ansixiyey 4 heshiis laguna magacaabay guddiyo muhiima. sida uu warbaahinta u aqriyay siyahayaha wasiirka warfaafinta maxamed cabdi xayr maareeye wuxuu golaha wasiirada xukuumadda xilka sii haysa ansixiyey heshiisyo dhowr ah oo kala ah: 1 heshiiska is-afgaradka maalgashiga Soomaaliya iyo Turkiga; 2 heshiiska is-afgaradka dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo Ethiopia; 3 aasaasidda golaha dowladaha Afrika iyo Carabta ee kudlada badda cas iyo gacanka cadmeed. geesta kalena golaha wasiirada ayaa sameeyey magacaabid cusub waxaana ay hay'adda tayadhowrka Soomaaliyeed u magacaabeen maareeye iyo maareeye ku-xigeen. waxay sidoo kale magacaabeen golaha adeega garsoorka oo 5 xubnood ka kooban. golaha wasiirada ayaa sidoo kale hay'adda badaroolka Soomaaliya u magacaabay 9 xubnood oo ay ku jiraan gudoomiye iyo ku-xigeenkiisa. lama oga sida ay sharci ku noqonayso in xukuumad xilka sii haysa ay ansixin karayso heshiisyo waaweyn ayna magacaabi karayso guddiyo heer qaran ah, taas oo aanan la ogeyn in xukuumadda soo socota ay aqbali doonto iyo in kale. weli warqaad TV ayaad inagala socotaan. madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ku sugan ayaa wuxuu la kulmay danjiraha dowladda Carabeed ee Qatar Xasan bin Xamsa. qoraal ka soo baxay xafiiska qoorqoor ayaa lagu sheegay in kulanka si gaar ah diradda loogu saaray xaaladda guud ee wadanka. waxaan hoygayga Muqdisho ku soo dhaweeyay safiirka dalka Qatar u fadhiya Soomaaliya danjire Xamsa iyo wafdi uu hogaaminayay safiirka. waxaan iska xog wareysanay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladda guud ee dalka iyo tan galmudug, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka galmudug ka soo baxay. ma jiro wax wara oo ilaa iyo haatan ka soo baxay dhanka safaaradda Qatar ee Muqdisho, taas oo xiriir dhow la leh dowladda Farmaajo. dhanka kale qoorqoor ayaa wuxuu sidoo kale magaalo madaxda dalka ee Muqdisho kula kulmay hogaanka madasha xisbiyada qaran, gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran, madaxweynihii hore mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynihii hore mudane Xasan Sheekh Maxamuud ahna gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo horumarka UDP na loo soo gaabiyo ayaa xarunta madasha xisbiyada qaran ku soo dhaweeyay madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor. sidaas waxa lagu yiri bayaan kooban oo ka soo baxay madasha. qoraalka ayaa waxa intaasi la raaciyay kulanka oo ah mid gaar ah ayaa diiradda lagu saaray xaaladda siyaasadeed, maareynta marxaladda kala guurka ee dalka iyo dhaqangelinta heshiiskii Dhuusamareeb. sabtidii la soo dhaafay ayay ahayd markii qoorqoor uu yimid Muqdisho ilo ku dhow xafiiskiisa ayaa xaqiijiyay in socdaalkiisa uu daaran yahay sidii shakhsi reer galmudug ah uu ku qaban lahaa booska laga eriyay xasan cali kheyre. sidoo kale arrimaha shirka Dhuusamareeb 3 ayaa ka mid ah qodobada uu qoorqoor u tagay magaalada Muqdisho isagoo kulamo la yeeshay madaxweyne Farmaajo, duqa Muqdisho, taliyaha sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin iyo xubno kale oo siyaasiyiin u badan. warqaad TV ayaa weli inagala socotaan. iminkana dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay dhawaan dib u furayso duulimaadyada caalamiga ah oo markii hore loo joojiyay sababo la xiriira cudurka dunida dhan ku saaqay ee corona. wasiirka gaadiidka dalka Maxamed Cabdullaahi Salaad waxa uu sheegay in 3 bisha Agost dib loo furi doono duulimaadyada caalamiga ah kadib markii hoos u dhacay cudurka corona. dowladda Farmaajo waxay sheegtay in dhaqaalaha dalka Soomaaliya uu hoos u dhacay tan iyo markii ay joojiyeen duulimaadyada caalamiga ah. ha yeeshee markii ay dib u furaan ay diyaariyeen goobo looga baaro dadka garoonka ka soo degaya COVID-19. duulimaadyada caalamiga ah ayaa la joojiyay 19 bishii Maarso ee sanadkan 2020. dhammaan duulimaadyadii caalamiga ahaa ee tagi jiray garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, taasoo iyana qayb ka ahayd dadaalada lagu xakameynayay fayraska sababay in dunida oo dhan ay la liicdo. dowladda federaalka ayaa hore u furtay duulimaadyada gudaha iyadoo garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ay maalin walba ka duulaan kana soo degaan rakaab ka imaanaya gobolada dalka.
ugu dambeynna madaxweynaha Mareykanka ayaa dalbanaya muddo kororsi. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo jeediyay fikrad uu ku doonayo in dib loogu dhigo doorashada madaxweynaha Mareykanka ee dhacaysa 3 bisha November. Trump ayaa isaga oo aan soo bandhigin wax cadeymo ah waxa uu mar kale ku celiyay sheegashadiisa ah in codeynta lagu soo diro boostada ay tahay qiyaameen, wuxuuna soo jeediyay in doorashada dib loo dhigo. dib u dhigga doorashada ilaa iyo inta ay dadka si sax ah amni ah oo nabdoon ugu codeyn karaan ayuu Trump ku yiri qoraal uu soo dhigay Twitterka. Trump ayaa shaki geliyay sharci ahaanshiyaha codeynta lagu dhiibto habka boostada ee dadka waraaqadaha codeynta ka soo diraan guryahooda, taasi oo gobollo badan oo kamid ah dalka Mareykanka ay sare u qaadeen kadib faafitaankii cudurka coronavirus. warka ka soo baxay Trump ayaa yimi iyada oo codadka ra'yiga ay muujinayaan inuu ka dambeeyo musharaxa dimuqraadiga ah ee suurtagalna ay tahay in looga adkaado doorashada 3 November ee sanadkan ka qabsoomaysa Mareykanka. taariikhda codeynta doorashada Mareykanka oo ah talaadada ku xigta Isniinta ugu horeysa ee bisha November ee sanad kasta oo afraad ayaa waxay ku dhigan tahay dastuurka Mareykanka, waxayna u baahnaan doontaa in Koongareeska uu bedelo taasi oo aan muuqan iminka. sidaasi oo ay tahay soo jeedinta arrintan ayaa ah mid qeyrul caadi u ah dal dunida u muujiya inuu tusaale u yahay taariikh soo jireen ah oo ah awood kala wareegis nabdoon. guud ahaan dhageystayaal wararkii aad kala socoteen Warqad TV waa naga intaas.